waan kuu hubaa inay adag tahay markabkii intaasoo bilood sano aad soo waday ee kuu rarnaa markuu meel xeebta u muuqata yimid in uu dego inay xanuunkeedu tahay mid xad dhaafa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. walaalahay kulantii isku soo noqod wanaagsan. waxaan maanta podcastigan kugula wadaagi doonaa sida looga kabto marka uu xiriir kaa burburo. way dhici kartaa in uu yahay xiriirkii guurka, wayna dhici kartaa in uu yahay xiriirka guurka ka horeeya. dhammaantiin maanta anoo channelka iska fiirfiirinaya baan waxaan ogaaday in 65% idinka mid oo channelkan daawata aydan subscribe garaysnayn. haddii wax uun aad channelkan ka faa'iido, fadlan waxaad igu caawisaa in aad subscribe taabato, si taasuna waxay kugu kaalmaynaysaa video kastoon soo geliyo mustaqbalka uu kuu soo gaaro. dhammaantiinna waad mahadsantihiin. waxaad ogaataa marka qof aad isjeclaydeen xiriirkii idinka dhexeeyay uu dhammaado, intaad adigu doorato ayaad xanuunka sii dareentaa. dadka qaar asbuuc bay ku qaadataa, dadka qaar 2 bilood, dadka qaar 7 bilood, dadka qaar sanad, dadka qaarna weligoodba kama soo kabtaan. marxaladaha kala duwan waxa hoggaanka u hayaana waa 2 waxyaabood. qofna wuxuu yaqaanaa marka xaaladdu ay kama dambaysta taagan tahay sida naftiisa loo samirsiiyo, qofna ma yaqaan. midda labaadna waxay tahay hadba xiriirku inta uu soo socday intay laagtahay. haddii xiriirku uu 6 bilood kaliya uu ahaa iyo haddii uu 2 sano ahaa, dareenka ka dhasha marka labadaa qof ay kala tagaan isku mid maahan. shakina kuma jiro marka qof aad jeceshahay uu kaa tago, xanuunka aad qalbiga ka dareentaa inuu xaaladaha qaar u dhigmo sidii qof ehelkaaga ka mid oo geeridiisa laguu soo sheegay. isweydiinta in badan marka qofku xaaladan uu ku jiro qalbigiisa ku taagani waxay noqotaa, sideen uga kabtaa, ma ka kaban karaa? qofka marka aad jeceshahayna in aad kala tagtaan sababo badan baa keeni kara. tan u la yaabka badan ee laga yaabo qaarkiin aad ila yaabtaan, qofkii marayna uu garan karo, waa in aad qof aad jeceshahay ka tagto ama qofku isagoo ku jecel in uu kaa tago. maxayse tahay sababta keeni karta? sababta keeni karta waa qofkan dhaqanka aad kula dhaqantay ama isagu dhaqanka uu kugula dhaqmay. dhaqamada qofku uu leeyahay waxaa jira qaar aadan ku qanacsanayn laakiin aad la noolaan karto, iyo kuwo aadanna ku qanacsanayn lana noolaan karin haddii mustaqbalkaaga aad sawirato ay kuu muuqato dhammaadkiina iyo gabagabadiinu. marka adigu hadba waxa naftaada aad u ogolaato iyo waxa naftaadu ay doorato ayay ku xiran tahay hadba xiriirkaasu inta uu kula gaaro. midda kale jirtay qof kastaaba ay tahay in uu ogaado, aana hubo anigu yaraantaydii, waayo wacyigelinta maanta jirta iyo podcastiyadan iyo dadku inay wax isu sheegaan iyo khibradaha nolosha in lagaaga warramo iyo ma jirin yaraantaydii markaan dib u eego, mana aanan aqoonin. middaas waxay tahay marka aad yar tahay, jacaylkuna uu kugu cusub yahay, xanuunkiisu waa ka kulul yahay marka 3 ilaa 4 qof oo aad la soo socotay ay jiraan, qalbigana kaa soo jabiyey. marka qof uu qalbiga kaa jabiyo waxbaad ka baratay. micnaheedu maaha inaad khasaartay, micnaheedu maaha inaadan dib uga soo kaban doonin, micnaheedu maaha inaadan qof kuu qalmo mustaqbalka arki doonin. xaaladan aad dareemayso oo dhammaanteedba gabagabadeedu ay ku tusaysay in nolosha wax dambe oo kuu haray aysan jirin, waxa keenaya weli waad yartahay, waa kugu cusub yahay, ama qofkaasaad ilaa xad waxaad isa siisay, rajada aad ka qabtaa ay kula gaartay in qofkan cimriga kaad la dhammaysan lahayd uu yahay. hadba rajada qofka aad ka lahayd intay la ekayd baa xanuunka hadda aad dareemaysaana uu leegyahay. haddii tusaale ahaan mindi lagu yiraahdo ku dul fariiso, laakiin adigaa doorashada iskale intaad culays saarayso. haddaad culays yar saarto waxaa laga yaabaa caaradeedu inay ku muddo. haddii aad kulli ku wada fariisatana waxaa laga yaabaa in mindida oo dhamme ay kugu dhammaato. marka maskaxdaada mustaqbalka aad ka sawiranayso muuqaalkiisu uuba kuu sii dhammaystiran yahay, cajaladu waaba kuu daaran tahay maalin walba. qofkan waad isguursateen, nolol fiican baad ku wada noolaanaysaan, qofkani weligii kuma khiyaani doono, hadal xun kuma oran doono, nolol farxad leh oo dhammaystiran oo isfahan leh oo kalgacal leh oo naxariis leh, guri caruur iyo awlaad qurxooni joogto. marka aad sawiranayso iyo marka sawirka kuu muuqda uu yahay inay macquul tahay, arrintaana nusqaan ay ku jirto. waayo reexamarku waxay ku mahmaahan dad iyo duurba wax walba ka filo. bini aadamka wax kasta waa ka suurtagal. daqiiqad kastuu qofku kaa tegi karaa, daqiiqad kastuu qofku wuxuu doono in kaaga dhigi karaa. waxan iyo waxan baad ku xuntahay baa lagu oran karaa. xaaladaha qaarna wayba dhacdaaba in qofku marka hore uu isaga kaa dhigo sidii inuu kugu qanacsan yahay, laakiin berri wixii uu kaaga tegi lahaa uu hadda sii hayo. dhaqamo aad leedahay oo hadda ka yara gunuunacaa jira oo uu dood iyo muran ka keena marmarka qaar aan badnayn, laakiin berri markaad guri isla gashaan oo reer wada dhisataan oo adigu ilaa xad aad isdhiibto
inuu qofku wuxuu shalay kugu ogaa uu khalad kaaga dhigo. Xaalado badan ay dhacdaba guryo badan inay ku dumaan, waxaanad adigu aamintaa ood la noolaataa in bini aadamku ay yihiin nusqaan dhammaystiran. Ma dhici kartaa? Way dhici kartaa. waayo qofku si kasta oo uu dadaal kastaba u bixiyo nusqaan laga waayimayo. hadduu xataa yiraahdo wax kasta oo bini aadamka maskaxdooda ku soo dhacay ku riyoodan waan haystaa, geeri baa sugaysa. marka aad qof xiriir la galayso waxaad ku talagalsanaataa inuu waxani bini aadam yahay, nusqaanna uusan ka marnayn. adiguba sidoo kale nusqaan badan baad leedahay. iyadoo labada nusqaanood ay jiraan ayaa haddana bini aadamka in badan oo ka mid yahay ay iskeenaan. su-aashu marka waxay tahay isweydiinta mudan, sidee ayay dadka qaarna uga guul gaaraan marka ay xiriir bilaabaan oo ay guur iyo reer iyo barwaaqo ugu dhammaataan noloshoodu? dadka qaarna aysan 2 sano isku xiranba reer lahaan karin, ama aysan qofba la socon karin 6 bilood wixii ka badan. xaaladaha waxa kala duwaya waa qof walba iyo dhaqankiisa, iyo qof walbaaba nolosha tan khibradda uu u leeyahay inta ay leegtahay. waxaana jira hadal aynu caado u leenahay oo intaa markaan hadalkayga hadda iri laga yaabo inuu qalbigaaga ku soo dhaco. hadalkaasu waa wax walbaba waa calaf. waxaana filaya in calafka luuqadda Soomaaliga waxa laga wadaa ay tahay qadarka Ilaahay uu qofka u qoray. laakiin mid baan rabaa inaan ku xusuusiyo, marka aad rabto inaad tiraahdo wax walbaba waa calaf ama inaad arrin weyday, waxaad fiirisaa dadaalka aad bixisay intuu leeka. horta sideeda ma dadaashay? tallaabo ma qaaday? ma u dhaqaaqday shaygan? dabcan haddii aad tallaabo u qaaday oo shaygaa weyday, waad oran kartaa waa qadarka Ilaahay, oo sidii anigu rabay hadday noqon weyday, sidii Ilaahay rabay bay noqotay. dadaalkana halkan kuma joojinaya, waa sii wadaya. laakiin ka waran haddaadan dadaalin oo aadan dhaqamadaada xunxun la dagaalamin, oo aadan naftaada hagaajinin, oo aadan nolosha tan khibrad u yeelan, oo bini aadamka sida loola dhaqmo aadan naftaada baran, ma oran karaysaa wax walbaba waa calaf? dabcan maya. telefoonkan haddaad iga daawanayso waa calaf adoo meel iska fadhiya kumuusan iman, ama qof baa kuu gaday, ama adaa shaqaysatay oo lacagtaad u soo dhididay baad ku iibsatay. haddaba intaa markaan ka soo gudbo, isweydiintu waxay tahay, marka xiriir uu burburo, ragga iyo dumarka keebaa xanuunka ku badan yahay? haddaba 2015 cilmi baaris dad badan oo kala duwan ay ku samaysay Binghamton University ee ku taala London, waxaa lagu ogaaday cilmi baarista in ragga iyo dumarka xiriirka ka dhexeeya marka uu burburo, labada qof ay kala tagaan, in dumarka uu xanuunku ku badan yahay. cilmi baaristu intaa kumeenanakan waxay ku dartay in marka ay noqoto dhinaca ka soo kabashada ay dumarku dhaqso uga soo kabtaan. kasoo kabashadoodaasna inta badan waxaa la socda in ay digtooni qabto, inaysan sidii hore noqonin, inaysan qof walbaba sidii hore u aamini jirtay aysan u aaminin, in sidii markii hore isu dhiibto kale aysan isu dhiibin. dhinaca kale waxaa la ogaaday markay noqoto dhanka xanuunka, raggu haba yaraadeen marka hore marka labada qof ay kala tagaan dhinaca xanuunka markay noqoto, laakiin xanuunku in uu ku daba dheeraado ragga oo muddo aad u dheer ay ku qaadato, isagoo xanuunkiisu isaga uu yar yahay, bay haddana muddo dheer ku qaadataa in uu ka soo kabto. waxaana la arkaa in laba qof xiriirkoodu uu burburo, laakiin qofna noloshiisa uu horay u sii wato, qofna uu hal meel nolosha taagnaado oo ay muddo ku qaadato in halkaa uu ka dhaqaaqo. si kastood xanuun u dareemayso ama wax kastoo ku soo gaaray qalbi ahaan, hamoodin inaadan ka kaban karin. waad ka kaban kartaa, weliba aad ka kabatid maahane waxaa kuu raacsan adoo qofkii hore qof aan ahayn ahbaad hadda soo bixi doontaa. sidii hore waad ka khibrad badan tahay. wixii dhaawaca kuu geystay markii hore hadda waa taqaanaa, haddaad adigu sabab u ahayd iyo haddii qofkii ku dhaawacay uu sabab u ahaa intaba. waxaana jira waxyaabay tahay inaad iska ilaaliso, aanna kuu hubo inaysan kuu shaqaynin. xaaladaha qaarna laga yaabo naftaadu inay aaminto sida keliyad xanuunka uga kaban kartaa inay sidan tahay, ama dadka qaar inay tala kuu siiyaan. waxaa ka mid a inaad gooni u socod noqoto. taasu adigay gooni kuu tahay, qofna tala kuuma siina inaad gooni u socod noqoto, laakiin naftaada waxay ku tusaysaa, ama naftaada xanuunka ay dareemaysaa intuu ka xoog bato ba waxaad noqonaysaa gooni u socod. saaxiibada ka goodo, ehelada guriga dadka aad la joogto ka goodo, dabeecadaado dhanba ay qallafsanaato oo xumaato, in waqtigaagoo dhanba aad ku soo koobto xilli aad qofka social mediahiisa fiirinaysa muxuu soo geliyey, waqti aad murugaysan tahay, waqti aad ooyeyso, waqti aad sariirta dhex galgalanayso, waxyaabihii danaha noloshaada ugu waaweynaa oo dhan inay dayacmaan. waqtigaagii marka maxaad siisay? waxaad siisay qofka aad kala tagteen, sababtaa doontaanba ku kala taga qofka. inaad kala tagteen aqbal. markaad aqbasho danahaaga kama dibdhacaysid, hawlahaaga guriga dadka kula jooga dabeecad xumo iyo dhaqan xumo kulama dhaqmaysid, si wanaagsan baad ula dhaqmaysaa. dhaqamada dhammaantood marka la isu keeno waxay qofka sabab ugu noqdaan in murugadu gabagabada habeenku marka uu qofku joodariga tago
inay ku soo gabagabowdo inuu qofku naftiisa naco qofkii aad kala dhammaateen meeshaad nacayb u qaadi lahayd naftaada inaad ka jartana sabab kuugu noqon lahaa naftaadaad nacaysaa waxaad isweydiin qofkan markii hore maxaa ku baray heerka intaadan gaarin naftaada xakamee waxaa kaloo ka mid ah in qofka aad fursad kale ka barido wayna dhacdaa mararka qaarkood isagoo qofka la xumeeyey oo dhibaato loo geystay oo laga yaabo in la khiyaanay oo laga yaabo in xumaan meesha ugu dambeysay qofkan la xumeeyey in uu markuu arko qofkii inay kala tagayaan qofkii uu ka tagayo inuu baryootamo oo yiraahdo fursad kale ma aysiisid bal fursad kale xiriirka maynu siino qofkan raba inuu kaa tago go'aankiisa wuu gaaray marba hadduu afka ka yiraahdo waan kaa tagayaa qofku kalsooni dambe oo aad ku qabtaa ma jirayso qofka inaad isla sii joogaysaan waa laga yaabaa in naftaada hadda aad isleedahay qofka aan sida la arkay u jeclaa ee kalgacalka intaa la eg itusay hadduu yiri waa kaa tagaya intaa yartaa maan iska cafiyo intaa yar maan ka samro laakiin waqtina waa kaaga lumaya qofkaana kalsoonidaad ku qabtaa waa kuu hubaa inaysan sidii hore ahaan doonin waxaa ka mida in isla markaa qofka aad kala faaruqdaanba 2 asbuuc 3 asbuuc markaad joogtaba inaad qof kale isku rarto waxaa ka mid ah oo taa micnaheedu waxay tahay in qofka aad ka aargoosanayso aargoosi baad tusaysaa waxaad rabtaa inaad tusto inaad qof kale heli karto social mediahaga waxaad ku qoraysaa inaad qof cusub heshay in noloshaadu maanta ay qurux badan tahay haddaad tagtay yaa ku tabay waxyaabahan heesaha maaragtay ku daadiska iyo inaad social mediahaga dhex dhigto ujeeddada dhan ee aad u dan leedahay marka maxay tahay in qofkaas uu arko markuu arkana in ay bal in yarna ha noqotee qalbigiisa ay xanuun ku qabato waxaa ka mid ah in waxyaabaha daroogooyinka ama waxyaabaha mukhaadaraadka inaad ku mashquusho adoo aaminsan in ay ku kaalmayn doonaan oo maskaxdaada aad dejin doonto oo stresska ayaan isku ilowsiinaya iyo wixii lamid ah naftaadaad kharibaysaa naftaada dani uguma jirto waxaa kaloo ka mid ah inaad cuntada ka go'do guud ahaan marka la soo duuduubo noloshaadii marka yaa yeeshay kula tahay qofka ka tagay waxa doontaanba ku kala taga ayaad noloshaadii oo dhan u hurtay oo siisay waqtigaagii isaga qaatay xaqii naftaada kugu lahayd isaga qaatay waxaasoo dhan waxa aad u maraysaana waa qof jacaylka aad u haysa aan ku ogeyn waxyaabaha aniga noloshayda ii shaqeeyay marar badanna igu kaalmeeyay in aan ka soo kabto qalbi jab kasto nolosha ila soo gudboonaaday hadday noqoto guur iyo hadday noqoto qof xiriir u naga dhixiyay labada kay doontaba ha noqoto sababtan doonana qofka aan ku kala faaruqno muhiimaddu waa in qofka aan qalbi ahaan aad u jeclaa laakiin aan kala faaruqnay ana ku hubo hadday anigaba ii shaqeeyeen inay adiga ku shaqeyn doonaan waa laba waxyaabood midda koobaad in aad aqbasho qofkani inuu ka tagay haddii naftaadu aysan ba aqbalin qofkani inuu ka tagay waa waxa keena in qofku uu qofka ka daba jiitamo oo waco oo fariimo u diro oo haddii fariimaha xataa ay gaari waayeen inuu xataa dad kale oo uu u diro raadiyo wadaday doontaba ha noqotee siday doontaha ku qaadatee in wado qofka uu u maro in qofku uu raadiyo waa bahdilaadaha qofku uu naftiisa kula dhaqmatan u weyn in qof kaa tagay tusaale su'aal baa ku weydiinaya qofku necab waa ku jeclahay ma oran kartaa dabcan maya taa caqliga xataa diidaya saliimka qof ilaa xadkaa doortay in uu kaa tago oo noloshiisa baashaalaya oo cunto cunaya oo si fiican u seexanaya oo eheladiisii la sheekaysanaya ayaad adigu intaa ka soo horjeedkeeda noloshaadii ay la baaba'san tahay oo dadkaad ehelada la ahayd baad ka go'day oo wax walba oo naftaada aanu qalmin baad samayn oo naftaadii dadka qaar bay sabab waxay ugu noqotaa inay qubaysan waayaan dadka qaar bay sabab waxay ugu noqotaa in naftooda inay gooyaan waynaba dhacday xaalado badan inaad waa laga yaabaa maqashay haddaadan maqlinna haddanba kuu sheegi intaasoo jeer baa la maqlay wiil ama gabar dabaq ka soo booday sababta uu qofkaasu dabaqa isaga soo tuurayn ay ahayd inuu nafta iska qaado waxa nafta uu isaga qaadayana waa qof kaloo bini aadama oo baashaalayo raaxaysanayo noloshiisu ay u tahay siduu rabay iyo midda labaad oo ah in aanan waayin qof ijecel moogtahay adigu maad waayin qofku jecel marka qofaad jeceshahay uu kaa tago isagu qof jecel buu waayey laakiin adiga waxa aad weyday ama kaa lumay waa waqti Soomaaliduna waxay ku mahmahdaa mukulaali meeshay macal uga baratay macaluul ugu dhimata waa laga yaabaa qaarkiin macasha inaydan aqoon laakiin commentiga qof idinku sharaxa waayi maysan sharaxaada ma raba inaan ku dheeraado laakiin qofku sidiisaba marka uu qof jecel ka tago badalkiisa nolosha abaal looga dhigaa qof aan fahmaynin oo kalgacal tusaynin oo isagu uu ku rafaado oo dadaalkii adigu aad isaga u maraysay 3 jibaarkii qof uu u maro maalin uu daalay
oo nolosha dhani ay ciriiri ku noqotay oosan intaa ka badan qofkaas sii qancin karin oo kalgacalka meeshii ugu dambeysay intuu siiyey weli wax laga sii sugayo baa nolosha waxaa ku dhacda qofkaas inuu adiga ku soo xusuusto markuu ku soo xusuustana badi waa laga yaabaa gabdhihiina videogan dhageysanaya qaarkiin inaad aragteen nin intuu kaa tagay gabar kale guursaday haddana isagoo gabadhaa qaba hadda adiga kugu soo laabtay way dhici kartaa inaad aragtay oo ku oranaya waan ku rabaa oo markaad tiraahdo gabadhii aad shalay iga raacday dhowr sano ka hor aaway xagee jirtaa waan qabaa oo aniga maxaad iga rabtaa waan ku jeclahay oo shalay waa ku jeclahay markaan ku lahaa soo taad iga tagtay maye wixii dhacay hadda iska ilow waan ku jeclahay xaqiiqo way dhacdaa marar fara badan wax kalena ma keenayaan dadaalkii adigu aad bixinaysay iyo sidii aad ugu rafaadaysay buu isagu maanta 3 jibaar u rafaadaya nabsiga inta badan dadkaas soo celiya ama nolosha ka jaasayso ka gudda waxa uu adiga kuu geystay waa sababaha marka aan u leeyahay waana kuu hubaa noloshayda in badan baan arkay markaad aragto qof aad jeceshahay oo kaa sii tagaya oo kule kuma rabo laga yaabo hadalka kugu xumaynaya laga yaabo inuu telefoon kaa qabanayn laga yaabo inuu xataa xaaladaha qaar ku caayo ama yastin kuu soo qoro faraha ka qaad argoosiga ugu macaan waa inaad qofka ka aamusto naftaadana taasaa danta ugu jirtaa waxa marka kula gudboon adiga muxuu yahay in aad naftaada la tacaasho dadka badankood ma sameeyaan marka tan waxay ku mashquulaan qofkii siday dib ugu soo celin lahaayeen waxyaabihii aan kuu soo sheegay bahdilaada qofku naftiisa oo kula dhaqma ka midka ahaa bay dadka badankood sameeyaan in yaroo dee nolosha fahantay ma ahane waan kuu hubaa inay adag tahay markabkii intaasoo bilood sano aad soo waday ee kuu rarnaa markuu meel xeebta u muuqata yimid in uu dego inay xanuunkeedu tahay mid xad dhaafa waan kuu hubaa in qalbigu ku jabayo waan kuu hubaa inaad ilmayn doonto laakiin dareemahaasoo dhan u ogolow naftaadu in ay marto inaad qofka ka daba orado ood ku dheganaato ha u ogolan laakiin in ay oydo u ogolow in qalbigu uu ku xanuuno u ogolow waxyaabahan oo dhan hadda ma qaadi karaysid sida aad moodayso laakiin waxaan kuu hubaa qofkii hore ka adag oo ka waaya aragsan oo nolosha fahankii uu markii hore ka qabay mid ka xeel dheer maanta leh baad noqon doontaa markaad noloshaada rabto guri inaad dhisato dhaqaalahaaguna uu $10,000 yahay injineerka doontid kan guriga uu ku dhisaa $10,000 guri u qalma ma dhaafayo laakiin markay ka soo wareegto 5 6 7 sano lacagta hadda aad haysataana $600,000 aad haysato gurigaana aad rabto guriga ugu quruxda badan xaafadda inaad ka dhigato maxaa laga maarmaan noqonaysa in guriga horta la dumiyo si kale looma qurxin karo waa in la dumiyo dhulka lala simo kadibna dhismo cusub meeshii laga bilaabo tan hadalkan ujeedada aan rabay inaad fahantaa waxay tahay dhaqanka aynu markaynu qoys ahaan isfiirino Soomaali ahaan aynu ku korno guriga cid ka caawisa oo wax ku sheegta oo ku hagtaamiye jirta aabba intuu kula fariisto adoo nina miyuu kaaga warrama xaaladaha nolosha iyo aqoonta u leeyahay mase badankood mar horeyba carareenba shaki kuma jirata cid ku hagtamaad haysan noloshaadu sidii adiga kula qurxoonayd ama adiga ku muuqatay inay wanaagsan tahay ama bulshadu qaab ay ku korisay baa jirta oo ay ku ababisay dhaqan ahaan markay noqoto waxa laga maarmaan markay noqonaysa in qof lagula kulmiyo dhulka kula sima si mar labaad aad isu dhisto qof kale cusub bad marka dambe soo bixi dadka qaar baa ku arki markaasay ku aroniyo aqli badnida oo xigmad badnida waxgeed waxaan ka baratay oo niyo malaha waalid aad u fiican oo dekayga ka fiican baa ku soo koriyay laakiin xaqiiqadu taa waa ka fogtay xaaladda marka hadda aad ku jirto ee barbaradka aad tahay iyo sida bulshadu ay ku ababisay ilaa in badan oo bulshada kamida waxa ka dhaadhacsan ama marka qaarkood aad social media ka arkaysaa qofku oranaya qofku bahdilaya ileen waxa jira hadallo aynu caado u leenahayo waxa la yiraahdaa gabar aysan ilmadeedu barkinta buuxin reer ma dhaqatay wax lamida been baa lagu soo xirigeliyay runta lagu dhaqaa laakiin miyay shaqaysaa waa maya ugu dambeynta waxay ku dambaysaa qofka inaad ka faaruqdo laakiin qofka markaad kala faaruqdaan casharadii noloshu ay ku dhigtay baa waxay ku barayaan xikmado badan inay kaaga soo baxaan nolosha tan u quruxda badan wajigaagan dambe waxaad noqon doontaa qofkii hore ka wanaagsan qofkii hore ka adag qofkii hore ka khibrad badan qofkii hore maanta uga aqoon badan waxa nolosha uu rabo waad isbedeshay waayo qofkii ay bulshadu soo ababisay ahaa hal dhinac kaliya hal rarnaado qofkaas ma jiro waa burburay mar labaad baa haddana dib qofka loo dhisay dhismahaagan dambe wuxuu sabab kugu noqon doonaa in aad qof wanaagsan nolosha tan ka hesho qofka aad rabto waxa leedahay shimbirkiisu la duula
cidda aad shukaansanayso nooca ay tahay hadda waa taqaanaa dhaqanka aad qofka ka filayso waa taqaanaa dhaqamada xunxun ee qofkii hore ay sabab u noqon karto inaad ku kala tagteen maanta naftaada waa taqaanaa sida looga jaro si qofkan aad isu keentaan ilaan qof aan khalad lahayn ma jiro maalinta lagu guursado haddaa gabar tahay iyo maalinta haddaad nin tahay aad guursato xor baanahay waxaan doonaan samayn karaa maalintaasaa u dambaysa waa qofkii raba in gurigu u dego waa qofkii raba nolol raaxa leh inuu ku noolaado waa qofkii raba in noloshiisu ay noqoto mid uu ku qanacsan yahay waa in aad ka samirto xor baanahay oo waxaan doonaan samayn karaa waqtigan doonaan baxaya ciddaan doonaan la hadlaya waxaan doonaan samaynaya sidaan doonaan yeelaya nolosha qof baa kula wadaaga ma kula tahay qofku inuu kaa qaadanayo waa maya noloshaadu marka in badan haddaad aragto qof caqli badan oo xikmad badan oo nolosha si fiican u fahmaya oo nolol qurux badan ku nool wax fara badan oo qofkaas uu soo arkay baa jirta dhismihii hore ee bulshadu soo ababisay ama naftiisu siday la ahayd uu ku soo ababiyey waa burburay cid baa ilaahay u soo diray baabi'isay dib buu mar labaad haddana qofkaas uu soo dhismay halkaa waxaad nolosha ka barataa in qof kastoo noloshaada ku soo maraba aan loogu talagelin inaad nolol wada wadaagtaan dadka qaar baa kuu soo mara inay cashar kuu dhigaan casharkooduna uu kaa soo saaro bini aadamka kan u dhaqanka wanaagsan kan u naxariista badan kan u caqliga badan kan u xigmad sarreeya bini aadam nolol lala wadaago haddii qof uu jiraba qofka lagu riyoodo inaad noqoto haddaba gunaanadkayga podcastigeenan maanta wuxuu yahay haddii aan ku iraahdo jawaan shamiita ah baa ka fudud galaas biyo ah maiga rumaysanaysaa waa laga yaabaa inaad tiraahdo maya haddii aad ka mid tahay dadka maya yiri bal yara si fiican ii dhegayso waxaan hadda kor daawaday video nin professor jaamacadiga wuxuu soo qaaday galaas biyo wuxuu soo hor istaagay ardayda wuxuu yiri galaaskan ma fudud yahay soo culus waxay dhaheen waa fudud yahay wuxuu yiri haddii bal aan kor u hayo 5 daqiiqo ka warramo waxay yiraahdeen wali waa fudud yahay bal ka waran haddii aan 3-4 saacadood kor u hayo dee caqligaa diidaya waxaan ognahay in galaasku marba marka ka dambaysa uu culays kugu sii noqonayo waxa galaaska cuslaynaya maahan galaaska waxa galaaska cuslaynaya maahan waxa ku jira waxa galaaska culayska ka dhigaya waa qaabka aad u hayso jawaanka shamiitada haddii aad qaado meel saarayso waa fudud yahay laakiin in aad hayso dee waynu ognahay isaga iyo galaaska biyaha isku mid maahan ujeedada marka hadalkan aan rabo inaad fahanto uga dan leeyahay waxay tahay dadka qofba inbaa culayskiisu leegyahay waxyaabo badan oo aad sahlanayso ood fududaysanayso maanta way fudud yihiin laakiin maalin baa dambaysa aadan dul qaadan karaynin waxyaabaha bulshadu ay kuu meerinaysay adiga uun ha lagu rarto adigu uun waxaad noqotaa dacsada lagu socdo waxaad ogataa maalin baad madaxa kor u qaadi doontaa maalintaana waa maalin ay mas'uuliyadi ku saaran tahay waa maalin noloshaadu ay intii hore hadda ka ballaaran tahay waa maalin aadan jeclaysanaynin noloshaada inaad halkaa kaga faaruqdo hadda waqtigan aad joogtaa fursada ku hortaala qofka aad guursanayso inaad diintiisa iyo akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa si fiican uga fiirsato haddaba intaynu podcast kale hadayna fahayno gaaran inuu dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh